بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هستلا فيكتوريا سامبر قاقاياش ميل با جوجتين waxaan rabaa jiilka saddexaad iyo shacabka Soomaali meel bay joogaan in aan maantu war degdegni wargeliyo oo aan ka soo hadlo in dawladdan Farmaajo ay wax isbedel ah wadin ay damjaditu tahay ay yihiin niman diaspora oo damjadiid cusub un baa yimid oo shaarka bedeshay waxaanu ka hadlaynay inuu Farmaajo ku campaign gareeyay maalintii la doortayna uu yiri dad baa la dulmay dadkii waa in xaqooda la soo celiyaa waa in dadka la raali geliyaa afis la weydiistaa oo dib u heshiisiin la galo taasi waa mid waxa kaloo aan iskugu maaweelinaynay inuu Kenya nabcan yahay inuu Ethiopia nabcan yahay inuu garbe safaaradda ka saarayo waxyaalahaas uu haadana way socoto dacayada Facebook iyo meelba ka socoto ay doon farma daahir wadaanay marka mid baan ni sheegaya maanta dadkii dulumsanaa ee reer xamar ahaa ee reer xamarka cadcad ahaa iyo madow leh qolo walba leh ee dadkii Israel ahaa dadkii xorriyadda u soo dagaalamay dadkii guryahoodii iyo aqligoodii iyo shaqadoodii dadka dhar ugu geliyay kaba ugu geliyay haday dadka reer xamar yihiin ee xamarweyn iyo shingaan leh haday shaanshiyad yihiin haday yihiin qoladan camuudiga haday yihiin herfaqi haday yihiin bandhabo haday yihiin moorshe waxba ni sheegayaan munishibiyada waligeed waxay caan ku ahayd tani waagi Talyaaniga gobolka Banaadir wuxuu caan ku ahaa haduu gudoomiye ka ahayn reer xamar gudoomiye ku xigeen u ahaan jiray hadii uu san gudoomiye ku xigeen ahaan jiray wuxuu qaban jiray xogeynta wuxuu qaban jiray maamulka lacagta wuxuu qaban jiray wax walba maxaa dhacay waa dadkii deegaanka u dhashay ee maanta meesha ka shaqeynayay reer xamar oo idil munishibiyo ka shaqeynay administration hayay maanta asif waan ka xumahay in Farmaajo iyo gudoomiyaha damjadiidka uu keenay cusub ee groupkoodan waa damjadiidto in maanta la soo magacaabay 5 ama 4 gudoomiye ku xigeen xogeen ku jirta wax walba ku jirta kuwa lacagta ku jirta oo nin reer xamar wax laga siinin oo la cabirin ba inuu yahay dad jiro ay Soomaalinimo leedahay Soomaalinimo ku jiraan inay banaadir yihiin oo waxba yahow laga soo qaado maanta meel mas'uul looga dhigay reer xamar uusan jirin marka muriidi gol farmaana u sheego reer xamar waa la siiyay wasiir la siiyay kanaas maanta reer xamar iyo reer baraawe wax la siiyay malahya been liishay okay taawa mid waxaan kaloo aad ajiib ula yaabanahay dadka dhahay Ethiopia safaaradda ka baxan lahay sawir inta la soo sarfay sawiray nin Soomaali oo calanka Ethiopia ka saaray ayaa la yiri waa la dejinayaa safaaradda laga saaray taana waxay ku cadaatay Farmaajo meel uma dhoofi karo asoo General Garbi la socon ninka u taliya Soomaaliya asoo la socon gobolada ma aadi karo meel uu aadi karo male baydhabo ka dagay General Garbi la socday dhagti wax ugu sheegay sawirada waa u jeedin marka waxa weeyaan waxaana loo qaatay oo xaq ku heli lahayn leena hadina laga qabto nimanka lama goodlaho xabashina loogu dhiibo yahuudina loogu dhiibo umareexaan dambe noo soo naqano qabiil wax ku wada antida ku wada wallahi billahi tallahi waxaan oranayaa ninkii carab dhahaan ninkii daahir dhahaan ee maalin walba Farmaajo caanayeen ka cilnay inamada yar yar waa inamo meel dheer wax ka arkay meel dheer bay wax ka arkay waa lisdiri xamar taaro dambe xamar ma joogayo maxaa dhacay dulumka ku ogashiin oo ka qaban weysay ma gobolka Banaadir loo dhiibay abgaal habar gidid iyo digili miraflo eeraayo oo banaanka ka timi dadkii u dhashay wax laga siinay marka waxaan ni sheegayaa dawladdu Farmaajo iyo ninkan qeyrlaabaha ay qeyradaan mursadee garbaati uu gashanayo waa dawlad oo ah dawlad farsameysan ee ku saleysan sidee maanta dadka dhulka u dhashay haduu hawiye ay duur xamar iyo haduu jareerweeniya loo tirtiri lahaa hubkana lagu aruursanayo Puntland laakiin mid baan ni sheegi waxaad ilowsantihiin raggii hooyada iyo ayayooyinkiini walaalihiina fuulay wali way kacsan yihiin hodheelada wax ku sitii diidan yihiin hiraab waanu hurdada ka kaca waa in biimaal la garab istaagaa oo iska daysin dagaalka la dagaalaysin biimaal iyo habargiir waa inay heshiisa u soo jeesataa calowga danfaarka ee yimid maanta sheeyahood waddanka wax iska dhiciya la dagaalama dawladdan la soo dhis dawlad maaha dawladdani tii Maxamed Siyaad Barre way ka xuntahay dawladdan gunta hoose u duugantay dawladdan Puntland marka qaadata ee hubka lagu guray
iyo Ethiopia waxa lagu socdaa in nimanka hiraab iyo nimanka reer xamar la tirtiro taabaan u arkay xaar farmaajo laakiin waxaan ku leeyahay xaar farmaajo tay mursade wuxuu ku tareeyma wax uu hawiye ka yahay male mursade asaa musbaar lagu kawi adiga iyo naagta xuntaad wadatid iyo kan ra'iisul wasaaraha dawlad ma dhisi kartiin dawlad loo midaysan yahay nin walba gobolkiisa haysto banaadir waxa iska leh abgaal iyo reer xamar mursade meelo ka soo galmay dayni loo caano la fadhin jiray dayni la fadhiisto dalaal ka ah marka waxaan oranayaa aad baan u xumaan si dawladda gobolka banaadir loo soo dhisay gobolka banaadirna ma ahane waxa weeyaan bakti iyo burbur la rabay la burburiyo muqdisho hasta la Victoria Sember qaash ma salaam bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hasta la Victoria Sember qaash videogan waa videogii labaad special video weeyaan oo doonayo maanta shacabka Soomaalida ee daacadda ah ka soo bilaab Somaliland haday asana ma hayeen ka soo bilaab ragii ahaa USC ka soo bilaab dadka Muqdisho ku nool kuwa Kismaayo ku nool kuwa Dhowbay ku nool kuwa Meeloob ku nool dhalinyaradu waxaad adinku garaneen baan doonayaa maanta inaan nin baro nisheego Soomaalinimo geesiyiin baa u soo dagaalamay weligood tani centuries boqolaalo sano ka hor oo magac Soomaali ku dagaalamay wax bashi la dagaalamay waxa ka mid ahaa ninkii ugu horeeyay ee Soomaali la dagaalamay Axmed Gurey ninkii yiraahdo bal isweydiiyay uu dhashay wuxuu dhashay Gadabursi waa nin dir ah waa nin erir Soomaali ah waxa kaloo jirtay wiilwaan oo asna u dagaalamay Ethiopia la dagaalamayay weligii ee Ethiopia la dagaalamayay ee taariikhda qortay asna waa la garanayaa wuxuu nin harti ah waa nin bartira waxa kaloo jiray oo la dagaalamay xabashi ee lagu soo gaaray ee daraawiish sameeyay ee shacabka Soomaali si u dhanyiin waqooyi meel ilaa xataa raxweyn ay ka qayb qaateen ee Ingiriis la dagaalamay ee ugu horeeyay Afrika wax diyaarado lagu dagaalamay Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan Asnaan ogaadayno absami harti ah marka waxa la sheegay sayidka waxba laga bartaa reer walba buu u gabiyay iyagoo waxna naqan iyagoo la garaneen iyagoo jiran qabiil walba uu ka gabiyay galkiisa dafis sayidku uu gabiyay wuxuu yiri ana fiirsho ilaaliyay mareexaan ay buka dhalooy mareexaan ku tali midka ku dhib dawladnimo iyo jiritaan Soomaali la waayay doonay wayna dhacday siyaad barmarku waxaan marka maanta ku soo qaatay ereyga oo qabyaalad ma ahano dadkii hore xikmad bay lahaayeen oo fiiro dheer bay lahaayeen waxaan u soo naqanaynaa century-ga hadda aan ku jirno jiilka saddexaad ee soo qaxayaan oo Ethiopia ay meel walba lagu bahdilo badda ku dhamaanayaan oo South Africa lagu diliyo meel walba lagu diliyo ay dadku ka farxayaan waxaan nii sheegayaa ninkii yiraaho mareexaan iyo majartee way isnabcayn waa been majartee waa doonfaar ma daahiro oo qayaano iyo kursi iyo inuu umad gumaysto uu umada gun ka dhigo uu boqor iska dhigo umbuuraadshayo qayaano ayuu ku socdaa ninka xukun raadi waa nin qayaano raadi nimanka mareexaana waa ay buko oo daaroodnimo futudo ku wato weligood weeyaan oo ka soo bixin oo ka soo naqanayn oo jirin oo dad jiran maaha meel ay ka yimaadeen la garanayno meel ku nool weeyaan maxaa racaan marka warka u keenay waxaan u keenay markaad leedihiin farmaajo Ethiopia nacab yahay Ethiopia area waa been askarta Ethiopian-kaad u jeediin ee maanta Muqdisho ku lugeynay ee maanta Baydhabo degan ee maanta gobollo walba dadka leenay ee gedo wax ku leenay horta ma lisweydiiyay yaa keenay igaad iska daay yaa keenay Ethiopian baarlamaan ma keenin
إثيوبيا وحا كيني إنن كي سو كوريينو برباريي أو يري صوماليا لينا يا فيلا صوماليا جاية عبد الله يوسف با إثيوبيا كيني سو جليي عيد الصوماليات إلا مقدشو جليي أسري جرد جيتك إثيوبيا كسري حمر فيلا صوماليا دجي جبري ويري أذان كاغسي تغي شريف كانوا ديبنا نقول با مريانا wax ka dhigayna wadankan waxa ku qabsan kartiin qitaan niid dejinaya Soomaali waligiin aka bixinay federaalka la qeybiya garaw federaalka lagu soo suubiyo oo jamhuuriyadda Soomaaliya diiday Itoobiyaanku waxa keenay ninka Cabdullaahi Yuusuf ilaahay khayr kuma siiyo aakhiro tan iyo yawm qiyaamah godkan waa lagu calaabi meel uu su'aal u jooga ummadu laay ceelasho sun ku daadiyo waxa ku daadiyo Cabdullaahi Yuusuf Morgan waa la mid nin walba ee garaada wata ee maanta muqdisho jooga ama xildhibaan ee ragga galmudug ah ee ragga Puntland ee dhulkooda nabad u yahay xamar waxay u joogaan qas bay u joogaan iyo tuugnimo iyo ummadda inay ka argutaan oo leeyaan ummadina waa ummadii xoreysan siyaad baro leeynay ka xoreysan marka waxa weeyaan Cabdullaahi Yuusuf wuxuu villa Soomaaliya ku soo galay raggi Itoobiyaanka ee gabre u watay ma farmaajo gabre eryayo asoo maanta isu diyaarinayo siduu hawiye iyo dir iyo daarood iyo irir Soomaali uu qolo walba ugu tuqulus lahaa maxaa dhacay waa ka maalin walba Morgan la fadhiyo lis diyaarinayo marka meel dheer baa wax ka arkaa maantu waxa la isdilaya laba jeer baa la isdilay siyaad baa la dagaalamay maxkamadaha la dagaalamay mar saddexaad dhiman waa tii lagu kala bixi lahaa oo reer xamar jareer weyne midibaan nin walba iska xoreyn lahaa nimankan Soomaaliyeedka daarood da waa danger raadana waxa weeye rabash hadhageysanayna aadana activity kaliya ee wadaan daarood waxa weeyaan sideen madax ku noqdaa sideen dadkan u adoonsadaa sideen dadkan hantidooda u qaataa sideen dhul bilaarsi u suubsadaa sideen wadanka u burburiyaa raggii u soo dhintay waxay iloosan yihiin raggii u soo dhintay ee maxamed siyaad bare kabala'aan ku saaray ee uga daba tagay ilaa Kenya maanta wuxuu ahaa General Aidi oo ciidankan u badnaa ceer waxay kale iloosan yihiin raggii Amerikaan dhulka ku jiiday markay manifesto Amerikaan yeeshay dhulka ku jiiday Amerikaan cararay way maanta ragga la duleysanayo dawladnimo doonay waxa la yiri waa baahnay baqti looma cun maanta waxay tahay waa maalin cusub al-shabaab bembe maanta waxa loo baahan yahay jihad hiraab maanta waxa loo baahan yahay jihad irir Soomaali laga soo gurmadaa hatta ilaa Somaliland lagu xoreeyaa Baraawe iyo marka waa in inta hiraab sheegata inta irir Soomaali sheegatay xoogga Soomaaliyeed waa inay dulmi diidaan waa inay ka bilaabaan farmaajo sidii berigii loo dilay Cabdirashiid Sharmaarke waxoogaa yar loo libaan dawladdii Cabdirashiid tano kaleed musuqmaasuq Muuse Boqor iyo tuman iyo kan iyo waxa la doonayaa maantu si fiican ii dhageysta ciidamada qalabka sida maantu hawiya u badan dhalinyaradii u dagaalantay siyaad bar saartay weey maantu waxa loo baahan yahay meesha salaan uga saaraysid shan xabadood dhabarka uga dhufta badzuuka ku dhufta hagogo meedkii hal gubaan leh haddii kala Soomaali ma hagaagayso maantu 21 century ninka odayaal samaystay ee maanta xabashiis ku ilaalinayo asii garbees isku guba aaway odayaashii hiraam aaway raggii maali iyo dhiigu huray in Muqdisho laga xoreeyo baqtigii mareexaanay dadka gumaysanay maanta waxaan oranayaa maanta Somaliland waa irir Soomaali dir iyo daarood weeyaan dagaalku wadanka xoreeyo dir iyo daarood iyo hawiye Soomaalinimo doonayaan wadanka laga xoreeyo nimankan doonfaarta wadanka laga xoreeyo nimankan hodheelada hablaha ku kufsanay wadanka laga xoreeyo dulliga soo noqday markan aan is xoreeno hal tirtiro magac daarood la dhaho magac hawiye la dhaho magac isaaq la dhaho magac la dhaho dhulbaanta qola walbo
أن نخلنا الصومالي سيدي إسرائيل ودنكا حرينيسو أي ديدا نينكي مانتا حبشي في التقوى أي ديدا أمسون القلوة مركا تاريخ لبرتا نيكا كيري وحوها عبد الله يوسف نيكا مانتا هاستنى الربطة إنو كدلو وتروريست كدي ومدها مسلم كا وفرماجو إثيوبيا waxa wadanka ku hayo nimanka daarood Ethiopia waxa wadanka ku hayo nimanka aan tilmaamay waxa laga hadlayaa dekada berbera waxa laga hadlayaa hirshabeelle oo shalay diyaarad xun oo jaad ka degto canshuur iyo wax bilowday say u soo kacdo lagama hadlayo Puntland taa maxay nileed Zakariya Puntland kama hadlayo wariya been li sheegay nimanka madax xiran waa hamaan fircoon لكن وحاني ليه هاي أقسم بالله سبا أقسم بالله وحلا وصاد هذين رجال فولو دمر كان فول دجال كان دم وحان ليه رجال كنيسة له فولا الماشي كسارة أسكال فيكتوريا سيمبر كقياس دار علي سو وحن كله يقولسو عرب وحن كله يقولسو هول قرن بدودين أديكم هول قرن بدودين قرن كل شيء وهوية قرن كلمة شنو سومالي قرن كلا شيء وأنا مكا عبد الله عيسى كرش قرن كلا شيء وهوية قرن كلا شيء وشريروين وما أنت لبوبي قرن كلا شيء وبرا ولو كذا قرن كلا شيء وأنا مكا مركز جوبي ما أنت لهز دولة دول حي دولة ثانية نسخوكين درتو بيمالي يا برجل ولا لا تهين هالشيء هوية ودن هالشيء حوادله وهوية وهذي كان دول كاجه هالصو هاو تشوشي شاد ما هني أقسم بالله خمري سود الجدار إيجا بتوجو ويان قال يجسير ككري مركو حالي هاي وانو دقالمنا مرلبات مركوبات مرسدحات مرافرات إلا عن كتر ترنو تم جديد كلمات وانو دقالمنا قرقان قادنا هذا المتشو النبي يا الشباب متأ سوادكو حرينو وانا لفريسانين تاسا سوچين وحالي هراب هردنا ككا هراب ولقى هرسيدات هيد هراب هردنا ككا ما انتو دخالا الليلة نمكا ددبلي وبدك هوب وقبا وبدك هوب وقبا وحسك عليان ددبلي الله الليا حسك سارين هبر قدر لعكتا مية لتين حدو عيري سليماني سعد هين ددبلي الله الليا دخاليه ودكاتاي رقم هبي سيدي بيرقي حاشي ولييو وضياشي تجار تسمعها من ربليو نفتو ظهورية أحمد شغلي يو اس سي هبكو إيدي هبكا خاطر إذا ماذا هلا وريقان هوية فيلا صوماليا ماذا حكتو بتحامشيدا إيو أيقان فرما جردو حسنا فيكتوريا سيمبر مع السلامة